السلام عليكم magacayga waxa la yiraahdaa Safiya Nuur Ahmed waxaan ahay a public health nurse degan magaalada Toronto maanta waxaan halkan rabay inaan idin kala hadlo cudurkan viruska ee hadda jira coronaviruska oo hadda loo bixiyo COVID-19 waxaan ognahay information badan ama fikrado badan inaan ka haysano oo cudurkan oo ka imanaya TV-ga nooga imanaya dad badan oo kale ay ka hadlayaan balse waxaan really rabaa meeshan wax ujeedada aan maanta aan rabo in idin kala hadlo arrintan waxay tahay waxaa jira information aad khalad u ah yacni war aad khalad u ah oo quseeya cudurkan waxaad maqlaysaa qof dad dhahaya dawleeyahay dad ku dhahaya waxa la keenay saliidan ama vitaminkan baa la keenay ama waxyaabahan baa cudurka ka celinaya waxaasoo dhan waa been so si aan u fahanno marka run ahaantii waxa uu yahay waxaan isku dayaynaa marka hore arina already ogtihiin wara already ogtihiin inaan dib ugu celino celceliskuna ma xuma marka inaan dib ugu celino adna ogtihiin in waxaan hadda idin sheegaya ay wax iska bedeli karaan wiigaga soo socda ama maalmaha soo socda because cudurkan waa cudur cusub oo cuduraan wax ka baranayna markasta oo ay fikrada badan ay nagu soo kordhayaan marka muxuu yahay marka cudurkani markii ugu horeysay waxaa la ogaaday cudurkan 2019 December 31 baa keeskii ugu horeeyay ama qofkii ugu horeeyay oo loo malaynayo inuu cudurkan qabo la soo ogaaday oo waad ogtihiin waxa weeyaan waxa laga soo ogaaday Wuhan China waxaana marka la ogaaday oo la xaqiijiyay arrintaas inay tahay cudurkaas in oo loo bixiyay COVID-19 inuu yahay horey looma aqoonin cudurkan oo looguma aqoonin inuu ku dhaco dadka bini'aadmiga ah walow coronaviruska waxa la yiraahdo ama corona oo u taagan yacni crown or head virus yaasha kuwa badan oo la yaqaanaa jira oo ay ka mid yihiin pneumonia ku dhacda run ahaantii pneumonia waa cudur sanbabada ku dhaco sanbabada biyo geliya qofka marmarka qaarkood waxaan dhahnaa qofka hawaa gashaan dhahnaa inaga laakiin badi waa virus baa keena oo sanbabada yacni biyo ka geliyo qofku u baahan yahay in laga daweeyo oo dad waaweyn oo badan ay aad ugu dhintaan run ahaantii bronchitis oo way ka mid tahay iyadana waxyaabaha u keena infectionska u keenay ka mid tahay bronchitiska waxa weeyaan tuubooyinka hawada qaada korkeena markii yacni aan neefsano labada tuubo ee kala aada tuubooyinka kala aada sanbabada ba bronchitis yacni bronchitis ah oo bronchitiska meelahaasi ku dhacdaa oo waxay ku ridaa jiro waxaa kaloo ka mid a ina xasuusataan runtii way u badan tahay yacni cudurka la dhihi jiray SARS-ka oo imaan jiray isagana oo mar hore imaaday oo Toronto in fact ku dhacay oo dad badan oo caafimaadka ka shaqeeya ay u dhinteen cudurkaas isagana waxa way cudur aan la aqoon buu ahaa oo yacni keenay dhibaato marka kuwaasoo dhan waxaasay ka mid yihiin marka muxuu yahay marka yacni cudurkani muxuu sidaan ku garan karnaa marka inuu cudurkani si astaamihiis aan ku garan karnaa marka muxuu yahay cudurkan waxa ugu weyn oo cudurkan aad ku garan karta waxa weeyaan xumad waxaad ku garan kartaa xumad ka koreyso 38 Celsius iyo wixii ka horeeya qofkii Fahrenheit isticmaalaya cabiraada ah waa inuu bedelaa laakiin waa 38 iyo wixii ka koreeya xumad ah waxa u malaynaysaa inuu kugu dhacayo hargab maaha laakiin fluga oo kaleeto fluga waxa weeyaan cudurkan aan hadda dhahayna yacni sanbabada buu dadka yacni inflammationka geliyayo karo korka dhanba aad ku xanuunaya waxaad dareemaysaa yacni daal waxaad dareemaysaa xumad waxaad dareemaysaa all that laakiin waxa ugu muhiimsan saddexda waxa ugu muhiimsan oo cudurkani uu astaan u leeyahay waa qandhada oo ah 38 iyo wixii ka koreysa taasoo sabab yacni runtii fiican tahay qofka inuu haysto geedka la saga cabiro in xumada qufac
qof aadan hore u qabin yani dad waxaa jira asma qabo sometimes qufaca ama dad waxaa jira yani quman qabo qufacaas ma ka hadlayno waxaan ka hadlayaa ama allergies qabo qufaca waxaan ka hadlaynaa qufac hadda kugu yimi oo badan iyo adigoo ku dhibto sidii aad u neefsan lahayd waxyaabahaasoo dhan baa jira laakiin dadka intooda badan saddexdaas waxba waxay ugu dhacaan wax aan aad yani dhibaato weyn u keenin oo aan geynin inay istaal u galaan oo kaleeto ma fahmaysaa that's why cudurkani runtii uu yahay cudur dadka already jiran ama dadka markoodii horeba qabay cudurro kale sida sokorto kaleeto yani maybe cudurro kaleeto ama qaadanaya dawooyin u qaadanaya kansarkoo kale oo kale yani qofka already cudurro difaaca korkiisa uu aada u hooseeyo hadduu ku dhaco qofkaasoo kaleeto waxa way dhibaatooyin badan baa ku dhici kara dadkaas waxay u badan yihiin dadka waaweyn right like waxay u badan yihiin dadka waaweyn dadka runtii aad dhibaatada u keenayo waxaa 65 iyo wixii ka weyn laakiin waxa waaye yani dad yaryarna wuu ku dhacay laakiin waxay ku xiran tahay dhibta uu ku keeni kartaa way yar tahay haddii aadan markaada hore cudurro badan aadan qabanin so dhibta weyn uu keeni karo haddii yani uu kugu dhaco oodan dawo yani uu runtii kusoo dhigto waxa weeyaan waxa pneumoniadii oo kaleeto sambabadii kaa galaysay kelyihii oo ku dhaawacma ama ku istaaga marmarka qaarkoodna waxay keentaa dhimasho so sidee u fidaa way cudurkan cudurro waa ognahay markaan ka hadlayno infection ama germs ama waxyaabaha qaarkood si un bay u fidaan ma ogtahay qaar waxa weeyaan anuu qufacay oo candhuuftayda kusoo gaartay oo kaleeto baa ka qaadi kartaa qaar anuu yacni neeftayda keliya anuu ku agtaagan oo neeftayda ka qaadi kartaa laakiin cudurkan waxa weeyaan waa germska oo uu keenayo in qofku markuu qufaco taas waa loo leeyahay qofku markuu qufacayo waa inaad yacni aad afka daboolata oodan gacanta oo ibro ku daboolen ama xaanshi aad gacanta ku haysatid ama Toronto kaleeto waxaa la dhahaa waxaa ku qufacdaa sleeve-kaaga meaning like waxaa ku qufacaysaa marada ku xiran inta so adoo qufacaya saan oo kaleeto marka maadaama ay tahay qufacii iyo dhacaanka afkaaga ka yimi iyo droplets ay dhahaan uu ka imaanayo germka siduu u fido oo haddii yani kasoo qaad haddaan qufaco kaleeta meeshaan candhuuftayda ay gaarto muddo badan buu inta oolaan karaa so hadduusan qof si fiican u nadiifin qof kala imaado taabto inagii baa sida u guda gudbinayna marka gacmaheenna is waxyaabaha ugu weyn oo gudbin kara marka taas waa loo dhahaayo marka gacamihii inaad si fiican isaga dhaqdo siyaabo badan baa jirta oo gacmihii la isaga dhaqi karo marka waxa haddii aad fiiriso aan mashhuur inaad maqasheen waxa waa inaad 20 second inaad gacmihii dhaqdid inaad saabuun ku dhaqdid inaad waxyaabahaas oo dhan yacni oomo ku dhaqdid haddii aad gurigaaga joogtid yacni waxyaabahaas haddii aad haysatid alcoholka ku ah oo at least ay ku jiraan 70% alcohol ah ku dhaqdid waxyaabaha oo dhan baad samayn kartaa so inaadan wejigaaga taaban taasoo runtii adag dadka waxa ku dhahan wejigaaga taaban waa hubaa inaan already wejigayga taabtay inta already waa taabtay laakiin waa inaan ognahay inaan bini'aadminaha oo waxyaabahaas oo dhan aan samayno laakiin aan in allaaliya intii aan awoodno aan samayn karno aan ku nadiifino gacmahayna sankaaga aadan taabanin waxyaabahaas oo dhan marka waxaa lagu kala gudbinaya waxa weeye qufacaas iyo adigoo dropletska ama candhuufta iyo wixii meelo ku daata iyo adigoo taabta oo korkaaga kala gaarsiiya marka waxaa kaleeto u baahan tahay haddii qof jiran
guriga kula joogo kale cudurka lagu sheegay ama aadan tegin meelo yacni buuqa hadda Toronto kaleeto Ontario kaleeto waxaa la soo dejiyey in meelo badan la xiro yacni waxa kaliya furan wixii muhiim kaliya waa iskooladii way xiran yihiin shaqooyinka dadka guryahooda ka shaqeynayeen restaurantyaasha xataa waa la xiray waxa waa inay cuntada laga soo dalbado ma ogeeye ma furi karaan baararka waa xiran yihiin waxyaabo badanaa xiran laakiin essential serviceska ama maxaa la dhahayo wixii loo baahnaa sida booliiskii ambulansadii waxyaabahaas oo la caafimaadkii waxyaabahaas dhan weli waa furan yihiin dhakhtaradii iyo farmashiyaasha waxay isku dayayeen inay dadka u furnaadaan laakiin innagay ku xiran tahay sidii aan uga taxadari lahayn inayn iyagiina jiranin marka waa inaa iska ilaalisaa hadduu qof jiran yahay haddii adiga aad jiran tahayna waa inaad guriga joogtaa qof hadduu guriga kula joogu jiran yahayna waa inaad aad samaysaa markasta oo maqlaynaa inaad iska fogeyso qofkii xoogaa ilaa iyo 6 feet xoogaa ka fogaatid inaad isku daydid waaye so haddii aad yacni wadamo kale joogtid oo yacni ka hadlayno dada intay fasaxyo aadaan waxay tagaan meelaha xayawaanka lagu qalo yaaldaad yacni taas hadda kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa wixii hadda wuu nala joogaa ma ka hadlayno qof intuu beer tegay meelahaas oo kale ka soo qaaday waxaan ka hadlaynaa sidee cudurka hadda dadka la joogo sidee loo yareeyaa inuusan u faafin okay so haddii aad xanuunsan tahay ama xanuun dareentid u malaynaysa inaad qabtid meel kastoo joogtid adduunka waxaa muhiima inaad dhakhtarka haddii aad awood u leedahay dhakhtarkaas inaad wacdid oo adoon soconin u tegin fahmaysaa haddii emergency tahay waa emergency haddii aadan neefsan karin all that stuff emergency waa wacaysaa laakiin waa inaad isku daydaa siiba Ontario haddaan ka hadlayno waa inaad isku daydaa inaad dhakhtarka wacdid dhakhtarka isaga la hadashid oo tiraahid dhakhtaroo waxyaabahana ahaya ma iman karaa ma siduu dhakhtarkii kuugu sii diyaar garoobo because dhakhtarada intooda badan farmasiyaasha intooda badan ma haystaan xataa yacni badi ma haystaan maaskigii iyo gloveskii iyo wixii wax kasta waa adag tahay si lagu helo marka adigu maadaama ay furan yihiin ay rabaan inay ku arkaan waa inaan inaga isku daynaa inaan hore usii wacno niraahno waxaanaan isku arkaa sidaanaan ahay yacni waa qofacaya feebarahan baa ahaya kan soosay kuula hadlaan marka isagaa markaa dhakhtarkii wuxuu isku kadayaya ama aad farmasiya wacdo isku kadayaya wuxuu kuu sheegaya nambarada u baahan tahay inaa wacdeen hadday emergency tahay definitely run ahaantii waa inaa markaas emergency wacdaa laakiin isku day in allaale intii aad awoodo inaadan wacin marka nambaro kale ayaa wici kartaa magaalada Toronto haddaynu deganaho kale Toronto waxay leedahay magaalo public health number ay leeyihiin oo telehealth la dhaho oo inta laydinku soo qori doono oo wici kartaan waxaa wici kartaan telehealthku yacni 24 hours ee furan tahay markastaa wici kartaa ma aha number hadda kaliya lasoo dejiyey number weligiis jiray waaye waxaa wici kartaa that's telehealth so Toronto Public Healthna waxay leedahay number iyadana oo aad ka wici kartaan maalinnimadii yacni ilaa iyo I think 5 meelahaas aad ka wici kartaan baa jira haddii kaleeto waxaa wici kartaan number Toronto haddaad degan tahay siiba 311 number lahaa wacaysa oo kuu sheegaya any number aad rabtid oo aadan adigu ogeyn ku heli kara oo ku guide garayn kara nambaradaas iyagana wici kartaa si marka aad u hubsatid inay muhiim tahay inaa istaalka aadid because markaan inagii aan u malaynayno inaan jirannahay oo 911 wacno waxaa dhacaya 911 waxaa ku imaanaya booliiskii waxaa ku imaanaya ambulansidii waxaa ku imaanaya firefighterkii marka maxaa dhacaya waxaa laga yaabaa adigu cudurkan baqditiisa darteed ina 911 wacday laakiin aadan run ahaantii aadan cudurkii uusan ahayn waxaa qabtid because waxaa laga yaabaa markii haddaa wacdid oo lagu yiraahdo haye ma ka dhooftay wadanka haye ma ka maqnayd wadanka haye qof oo banaanka ka yimi oo wadanka ka yimi wadan kale ka yimi cudurkan ku badan yahay miyaad la dhaqantay ma waxaad ku dhawaatay qof cudurkii qaba waxyaabahaas oo dhan haddayn jirin yacni way yar tahay sidii cudurkaas adiga u qabtaa marka in haddii aad
ambulance wacda 911 wacda emergency service wacda dhibaatada dhacaysa waxa waaye qof runtii aad u baahan oo ma car accident galay ama heart attack ku dhacayo ama u baan helaynin awoodii in loogu yimaado so waa inaan isku daynaa in allaale iyo intii aan yareyn karno inaan 911 wacno haddii loo baahan yahay definitely waa in waad wacaysaa ma fahmaysaa marka waxyaabahaasoo dhan baan rabay marka inaan idin sheego ta kaleeto oon rabay inaan ka hadlo waxaasoo dhan waan ognahay laakiin ta runtii aan rabay inaan idinkala hadlo siiba haddaynu nahay dadkeenan Toronto jooga waxa weeye sidee marka ma naqaano cudurkani meesha uu socdo saan idin sheegay Ontario kaleeto emergency waxaa lagu soo rogay yacni emergency lagu soo rogay yacni waxa waaye meel kasta waa la xiray ilaa iyo bisha 7 April 7 meelaha intooda ugu badan way xiran yihiin soma so sidee marka inaga dadkeenan inta degan Soomaalida ah ee Toronto degan si isu caawinaa sidee ma ognahay dadkeena waaweyn maadaama la leeyahay cudurkani wuxuu ku dhacaa dadka waaweyn ma ognahay dadkeena ayayooyinkeena iyo awowayaasheena iyo dadkeena waaweyn aan lahayn ehel aad ugu dhow oo iyaga dhaqaaleeya waxaan ogahay dad waaweyn oo degan guryo dawladeed hal qol kaligood degan baa jira ma ognahay yacni maadaama la leeyahay iyagii iska ilaaliya dukaamada cuntada ha aadina maxay tahay ballanteenu sidee uga taxadarnaa sideen uga warhaynaa sideen cunto ugu gadnaa sidee inaga isugu imaanaa oo yacni inta sajilno oo magacyadeena qorno u dhahnaa adigu ogow eedadan abtigan ogow adeerkan ogow hooyada haysata ilmaha jiran oo infectionka u dhibayo ama hooyada iyada laftigeeda jiran sidee u caawinaa waxyaabahaas oo dhan baa naloo ka baahan yahay aynu masaajidadu inay ay hadda yareeyeen dadkii imaanayay cadadkoodii laakiin waxaan ogahay dukaamadu waa eber waxyaa cuntooyinkii oo dhan kale way kala dhammaadeen haddaa cunto haysano oo ehel qof walaalkeenu cunto haysan si cuntadii ugu geynaa ma garanayo sida aan rabno inaan waxaa u samayno laakiin waa wax yacni muhiim ah marka waxay ila tahay inaan isla xiriiri karno inaan isu imaan karno inaan yacni waxyaabahaas oo dhan iska caawin karno oo tan ay noo noqoto maanta mid indhaha noo furta maxaa yeelay waxa weeyaan cudurkani waa يعني cudurada kamida waa yani waa kii toddobaad coronaviruska marka la coronooyinka waa kii toddobaad oo la aqoonin laakiin ma hubno meesha uu gaari doono meel kasta way xirantahay meel kasta dhibkaana jira so sidee marka muhiimadda waxay tahay sidee isu caawinaa waa inaan ka fikirnaa I think masaajidadu waa inay qaadaan hormuud u noqdaan waxaan ay iyagu horumariyaan ay cid kastoo masaajidkaas dadka ku xiran ay dhahaan okay annaka ballan qaadna inaan dadkan wax tarno waxyaabahaas oo dhan inaan samayno hadday noqoto farmasiga iyo dawooyinka uga baahantiin sida ogtihiin dadkiina Toronto degan especially dadka westiga degan dad aad u fara badan baa annaga farmasiga aan ku xiran marka waxa waaye haddii aad u baahantiin meel kastoo dawo ka qaadataan haddii ay dawada waca farmasiga ka qaadataan waca hadaa sokor u qaadatid hadaa dhiikar u qaadatid hadaa waxaasoo dhan u qaadatid dheh hala ii keeno haliiso hala ii keeno because we don't know like ma aha inaa 3 bilood 4 bilood qaadatin but make sure inaadan yani maalintii ka horeysay bari iyadoo kaa dhamaynaysa inaadan maanta dawaraadin because dukaanku meesha way xirmi kartaa dhakhtarkana hore u sii wac sidaan idin sheegay oo la socodsii xaaladaada ana kale nala soo xiriira masaajidyada run ahaantii waa يعني ومش أوجس كيس أو ضد كانوا أد وحرينهن يجعل الحريرة يجوا ويدي ضد كي وحويدين لهيدين أم أكو حرم لهيدين سانشيجا يعني دكتور كينا فرمسينا محلي هذا مساجد كينا درس كينا وحصلنا إنا رون أهانتي بقدم بدن باجرته عذر كان لكن رون أهانتي ضدك أول ما نايم مبضنا the only thing waxa weeyaan oo dadku ay lama hubo meesha uu gaari karo dawana malaha right dawana malaha waana cudur cusub
haddana in Toronto kaleeto waxa lagu arkay dad aan xataa dhoofin on meel kale u dhoofin taasoo kuu sheegaysa dadkiiba isu gudgudbinaya hadda dadkii dhexdooda dadaan dhoofin baa cudurka qaba marka aan isu nimaadno tan mid indhaha noo furta ilaahay nooga dhigo aan iscaawino aan isku xiranno waxaan kulligeen idin rajeynayaa caafimaad iyo nabad isku dayana inaad farahana iska dhaqdaan in allaale intaa gurigiina joogi kartiina joogtaan isna caawidaan haddii ilaahay idno nabadgelyo